boqolaal mudaharaadyaal ayaa ku qamaamay aagga ammaankiisa aadka loo ilaaliyo ee Baghdad, waxaana gudaha ay u galeen dhismaha baarlamaanka Ciraaq. taageerayaasha wadaadka Muqtada Sadar ayaa ka soo horjeestay go'aana xilka ra'iisul wasaaraha loogu magacaabay musharax ay sida weyn isaga soo horjeedaan. isbahaysiga siyaasadeed ee Muqtada Sadar ayaa ku guuleystay kuraastii ugu badneyd doorashadii guud ee bishii Oktoobar ee la soo dhaafay. booliska ayaa la sheegay sunta dadka ka ilmeysisa inay ku kala irdheen dibadbaxayaasha xilli dadka gudaha u galeen xarunta baarlamaanka, waxaana la sheegay in aanan xildhibaano joogin xilligaasi. goobaha dibadbaxayaasha xoogga ay ku galeen waxaa ka mid ah aagga sida weyn loo ilaaliyo ee ay ku yaalaan tiro ka mid ah dhismayaasha ugu muhiimsan ee caasimadda oo ay ku jiraan safaarado. ilo dhanka ammaanka ayaa wakaaladda wararka AB u sheegay in ciidamada ammaanka ay markii hore ay u muuqdeen in ay joojiyeen kooxihii soo weeraray balse ay soo galeen baarlamaanka. ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Al-Kadhimi ayaa ugu baaqay dibadbaxayaasha inay ka soo baxaan dhismaha iyadoo dadka ay heeso ku qaadayaan isla markaana goobka ciyaara ku horsameeyay dhismaha baarlamaanka dalkaasi. qalalaasahan ayaa daba socda muddo 9 bilood oo ismariwaa uu taagnaa iyadoo khilaafkii u dhaxeeyay dhinacyada kala duwan ee siyaasadda dalkaasi uu sababay in la dhiso dowlad cusub. Muqtada Sadar oo ah wadaad Shiica oo ka soo horjeeday faragelinta Mareykanka Ciraaq ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqiisa uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday bishii Oktoobar, laakiin waxay noqotay wax aan suurtagal ahayn tan ilaa markaasi in la dhiso isbahaysi cusub oo dowladeed, maadaama Muqtada Sadar uu diiday inuu la shaqeeyo kooxaha isdiidana. isaga iyo taageerayaashiisa sababta ay ka soo horjeesteen musharax Maxamed Al-Suudani ee xilka ra'iisul wasaaraha loo magacaabay ayaa ah in ay aaminsan yihiin in aad ugu dhow yahay madaxda Iiraan. dibadbaxyada ka dhacaya Ciraaq ayaa dadka dib u soo xasuusiyay dhibaatooyin badan oo Ciraaq soo wajahay sanado badan oo la soo dhaafay, inkastoo dalkaasi uu qani ku yahay saliidda. mudaharaadyo waaweyn ayaa qarxay sanadkii 2019 iyadoo ay dadka ka caraysnaayeen musuqmaasuqa, shaqo la'aan iyo xaaladda adeega bulshada. boqolaal qof ayay ciidamada ammaanka dileen xilligaasi sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. taageerayaasha Muqtada Sadar ayaa sidoo kale xilligaasi xoog ku galay dhismaha baarlamaanka dalkaasi. arbacadii howlgalka qaramada midoobay Ciraaq waxa uu sheegay in dibadbaxayaasha ay xaq u leeyihiin in ay mudaharaad sameeyaan ilaa inta ay ficiladoodu yihiin kuwa nabad oo sharci ah.